madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa Maxamed Xuseen Rooble u magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Soomaaliya sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. qoraalka ayaa lagu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si waafaqsan qodobka 9aad ee dastuurka kumeel gaarka ah waxa uu magacaabay wasiirka koobaad ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya kadib markii golaha shacabku ay kalsoonida kala laabteen xukuumaddii hore 25 bishii hore ee Luulyo ee sanada 2020. madaxweynaha oo la tashiyo badan ka sameeyay ayaa maanta ay taariikhdu tahay 17 bisha Sebtembar ee sanada 2020 ayaa xeer madaxweyne waxa uu ugu magacaabay Maxamed Xuseen Rooble inuu xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya uu noqdo isagoo oo ku soo xushay aqoontiisa waayo aragnimadiisa kartidiisa u leeyahay inuu ka sii amba qaado dadaalada dowladda dib u dhiska iyo horumarinta qorshaha qaranka Soomaaliya. Maxamed Xuseen Rooble ayaa deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada Muqdisho. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray ra'iisul wasaaraha cusub inuu degdeg ku soo dhiso xukuumad tayo leh oo dalka horseeda inay ka dhaqan geliso doorasho dadaal muuqdana gelisa sidii loo xoojin lahaa guulaha la gaaray amniga dib u dhiska ciidamada qalabka sida horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha baahiyaha aasaasiga iyo kamiro dhalinta dagaalka ka dhanka argagixisada iyo musuqmaasuqa. madaxweynaha ayaa ku adkeeyay shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladda iyo indheergaradka dalka Soomaaliya inay isku garab taagaan ra'iisul wasaaraha cusub gudashada waajibaadka dastuuriga ah ee horyaalla isagoo ugu duceeyay inuu ka soo dhalaalo mas'uuliyadda adag ee ku aadan u adeegidda dalka iyo dadka Soomaaliya.